السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوداشين شرفت له halkan naga daawanaysan waa barta aynu Facebook ku leenahay ee Somali Facebook iyo waliba barta aynu YouTube ku leenahay ee Somali Official. Caawa wax kale oo ma soo fariisanin waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii salawada socono wadanka waxaa ka jiray abaaro aad iyo aad u saameeyay ummadda Soomaaliyeed. balse Ilaahay xamdigiis isbuucan gudihiisa waxaa urtay roobkii oo Ilaahay waxa uu ku irsaaqay ummadiisa islaamka roobkaas oo dad iyo dunyaba ay ku dirsadeen. Alxamdulillah ruhantii waxaan rabaa inaan halkan idinku soo muujiyo sawirkaas oo ruhantii aad iyo qiiro geliyay. runtii dad iyo dunyaba Ilaahay kama marmaan waxaana mar walba muhiim ah waxaad haysato inaad u xamdiso Allah subhanahu wa ta'ala. waayo Allah subhanahu wa ta'ala waa kan deeqda bixiya risaaqa ummadda sababtoo ummadda asaga uu abuuray risaaqadoodana isaga ayaa damaanad qaaday. bulshada Soomaaliyeed inta badan waxa aragtaa dad Ilaahay dhameystiray lixaadkooda wax walba haysta isna maanta aan ku xamdinayna Allah subhanahu wa ta'ala kuwa oo bedelkeeda sameynaya waxyaabo uu san Ilaahay raali ka ahayn. runtii waxaad adiga maanta haysato Ilaahay biri waa ka qaadi karaa. waxa adiga maanta aad haysato qofka aan maanta haysanin Ilaahay waa uu siin karaa. qof walba bini aadana waxa waajib ku ah waxa uu maanta haysto inuu ku xamdiyo oo ku amal qaato qofka isaga ka liita waayo waxa uu isaga maanta haysto qofkaas Ilaahay uma weyn. waxaan leenahay alxamdulillah Ilaahay roobka inoo urtay ummadiisa ha ugu dhigo kii abaarta ka bixin lahaa. qof walba islaam ah waxaad ku cibro qaadataa waxaad adigu maanta haysato qof ayaan haysanin waxaad maanta haysato inaan ku qanacdan aad bay muhiimsantahay. waxaan ka codsanaynaa muuqaalka like saarto si share garayso si dad badan u gaaro aad baan u mahadsan.